shaqaysan karin afmaal ah oo afkiis ku shaqaysanayo maanta waxyaalahan inaad lagu goodinayo dilmada lagu hanjabayo ma garanayo yiraahdo waa arrin aad u foolxun arrinta ayada wuxuu inaad ninka asaga uu sheegay in ninka la yiraahdo Daahir Calasow oo ah nin dee la garanaysaan waxaad ku barateen inta badan Nicmo Joker iyo ninka liidii Sharon Boy in uu dhawaateeyay haddana inaa ninka aragtay masaakiinka ah lixdiis laad aan u dhamaystirneen buu hadda inaa wuxuu doonayay in uu burburiyo uu qoyskiisa u burburiyo in wuxuu doonayay xamar oo magaalo Soomaaliyeed ah oo haddana caasimad dalka Soomaaliya inuu ka fiijiyo oo inaa meel kale u raro isagoo sheegay in inaa xamar iyo ay leeyihiin inaa qabiilka asagoo kasoo jeeday inay leeyihiin in inaa baabajey uu yahay shakhsi aan u dhalinin inaa xamar waa arrin dhibaato aad u weyn waaye inta badan inaa waan la kulanaa marka waxaan leenahay ninka masaakiinka ay duunka lagu wado Soomaali maxaan meel walba joogan way arkayaan inkastoo laakiin baabajey naftiisa dhalal fara badan aan ka qabo dee baabajey markay inay isqabtaan waxaa fiican dee qofka markuu xumaanta ku geysan inaad sheegto maahan marka haddii dagaal lagu wado waxaa aad u qurux badan lahayd intuu iska aamuso inaa uu joojiyo dhibaatada fara badan uu sheeganayo inaa uu dee heshiis u darbeeyo dee maanta wax inaa ugu dhow ma jirto asaga u baahan maanta si walba hadda noqoto heshiiska asaga u baahan aad baad mahadsan tahay waxaad ka dhawaajisay baabajey laftirkiisa oo dhaliilo leeyahay qofka bini'aadmiga horta haddii laga dabagalo oo qof walba waxa uu samaynayo loo fiirsado dhaliilo wuu yeelan karaa oo qofkani ma ahan malaa'ig waa qof bini'aadmi ah wax kasta ayaa ka iman kara haddii la xumeeyo wixii lagu xumeeyey media ayuu ahaa isagana media ayuu leeyahay waxa uu wax kusoo gudbiyo ee keliya laisku arko ama lagu bartay ama aftida iyo aragtida dadweynaha loo soo bandhigana waa media ma waxaad leedahay muxuu uga hadlay arrinkaas oo bannaanka u keenay maya horta Daahir Calasow waan garanaynaa dee waa nin minaa dhaqankiisa nin walba ay garanayaan waa nin minaa inta badan waxaa la Daahir ninka isqabtaan ma daayo haddii uu shalay uu qalad minaa uu sameeyey uu raaligelin ka bixiyey xitaa baabajey naftiisa oo dhaayay dee halaga raali noqdo waa qalad aan sameeyey waxaa qurux badneed in minaa uu ka gaabsado laakiin hadda waxaa moodaa in baabajey uu raadinayo qof fiis raadinayo inuu yahay minaa dee mar wax lagu sameeyo intuu ka hadlo waa la idilay sidan baa la yeelay marka xamaasadii wuu sii kicinaya marka ayada taasoo minaa abuuri karto in minaa laba qabiil ay nacab isku qaadaan mise dagaal ay isku qaadaan kaleto waxaan la wada soconay saad arkaysaybu baabajey minaa tulkiisii in minaa maantaxaas ay soo fadhiisteen hadday noqoto abtiyaashiis hadday noqoto sidoo kale adeyaashiis iyagoo ismarkaana sheegayaan in minaa wiilkoodii haddii la daan waayo ay dagaal qaadi doonaan ay dagaalka xigaan oo dad fara badan oo dee ninka Daahir Calasow la tol ah ay jiraan oo minaa dhibaatada uu Daahir Calasow ninka u geyso inay u geysan doonaan marka to avoid that waxaa aad u qurux badan haddii minaa wax haddii afkaal ay tahay oo minaa ficil uusan dhicinin waxaa aad u qurux badan in baabajey uu arrinta ayada ka gaabsado maadaama dee minaa danta asaga ay wadaa maanta minaa waa nin ma ahan oo dee ka baxsan kara minaa haddii dad soo weeraraan ninka badbaadi kara ma ahan haddii minaa dhibaato loo geysto asaga ayaa minaa u fudud marka waxaan dhihi lahaa baabajey ha isdejiyo dhibaatada naftiisa minaa markii loo satan Daahir isaga hataa dhibaato weyn buudaa ee dhibaatada hadda okay hal maadaan taasi kaa leeyahay saaxiib horta nin walba aragtidiisa waa waadix oo wax u bannaan weeye laakiin baabajey sidaad ka dhawaajisayba waa afmaal awoodiisa waa afkaasi dawey keliya uu ku badbaadi karo ama markaasi uu isleeyahay bal dadka ha kula arkaan caqabada iyo dhibka ku haystana waa in media uu soo fariisto ama uu live soo galo TikTok ama YouTube uu muuqaal soo dhigo kuma haysan karno oo ma dhihi karno muxuu dhibka u qarsan waayey waayo maanta xilli dhib la qarsaday lama joogo oo adduunkii media ayaa garsoore laga dhigtay cadaaladda dhan media taala soomaalidana qofkay u gurmadaanna waa u gurmadsan yihiin oo wixii uu yani muxuu ahaa markaasi qofkaasi tabanayayna wuu gudbaa oo caqabada haddii markaasi lagu gurmado oo isaga lagu duulana isla markaasba khadka ee si degdeg looga saara saas darteed si uu uga hortago in yani muxuu ahay ay soomaalida ula arkaan dhibkaasi ama muxuu ahaayey tilaabada keliya u furan ama meesha keliya muxuu ahaa uu isleeyahay arrinkani waa lagaga gungaari karaa waa mediaha inuu soo yani muxuu ahay dhigo maadaama arrintani ay media ka bilaabatay marka hore laba shakhsi is wada fadhiya oo live isku hor fadhiya isma dagaalin media la iska dagaalay haddana isla media baa socota oo horta taa kuma eedeyn karno waa kugu khilaafsan ra'yi ahaan ra'yigaa kaashi waa sax midda kale meesha ku jirtana waxaa ah baabajey waxaa tiri waa views raadis waa sax views waa raadinaya oo waayo the only way oo muxuu ahaa ninkaasi shaqadiisa ah ama experience-ga uu u leeyahay keliba baba codkaasa inuu soo gudbiyo ama muxuu ahay uu mediaasi yani muxuu ahaa uu wax ku soo gudbiyo taasna ku qabsan kari mayno oo waayo adiga oo hadda maanta dan ka hadlaysid haddana wixii dhib ahoo ku saaranna meelaad kusoo gudbisa haysid ay kuusii dheer tahay inaad lacag samayn kartid waa intaasoo faa'iido oo muxuu ahaye taasna kuma dhaleeceyn karno laakiin anigu waxaan diiradda saarayaa dhaleeceynayaana Daahir Calasow iyo weliba dadka ka dambeeya waaweyn arrinkani ka shaqeeyey ilaa iyo heerka soo gaarsiiyey waayo ninkani maadaama uu yahay nin muxuu ahaa waxaa la yidhi lo ay xaggee ku nugul markaasay tiri gollonka
ilaa hadda waxa la yidhi ruwaa markuu lo galo ama lo ulaynayo gollanka ayuu ka aadaa Sax. marka lo ay xagee ku nugul in la dhaho baabajey oo muxuu ahaa markii la ogaaday qabiilkiisa inuusan meesha u badnayn ama sida haddaba ilaa hadda walow aad aragtay miidiyaha in la leeyahay qof kasta oo wax cilad lagu qabto abtirso ishay qabiilkaada un ay tahay isagana intaas ayada xoogaa ma aragtay abtiyaashii uu soo fariisay lagu sii dhaleeceeyo ninkan maadaama abtiyaashii uu keenay aabba malamiya awtolkiisii la yiri lagu khasbay haddana nabadoonkiisii oo adeerkiya in lasoo fariisiyo haddana lagu khasbay arrinkaasi oo isku soo duuduubo waxaan ula jeedaa yacni lo ay xagee ku nugushi waa gollankiye haddii loo baabajiyey keliya meesha u nugul wax kusoo gudbin kara waa miidiyahana aan ka caqabadayno oon ka dhuunqabatayno oo ribood aan dhahno oo meel kasta aan copyright ka saarnana laftirkeedana waa xadgudub weyn oo xaqdarro weyn waaye sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyey in la handaday oo aad loo gulguulay oo askar loo soo diray oo noloshiisa ciriir la geliyey arrinka isaga laftirkeeda waxa weeyaan waa dulmi weyn oo loo geystay walaalkan baabajey run ahaantii waa la samraa oo waa run hadalka inaad iska sii wadwada ma ahan oo samir baa fiican inaad u gaalisato haddana hadday kula maarmi weydo aragta naftaada inay ciriir ku jirto meesha keliya maanta aad ku farda bixi karta ama aad aragtida kula wadaagi karta waa media marka ugu dambeyn arrinka isaga ah mar baa la xaliyey maxaa soo cusboonaysiiyey baa is leedahay adu horta nijita waxay tahay gabar baa la furayaa oo micnaha shin midha ku jirto way soo fadhiisanaysaa waxay micnaha ka hadlaysaa maalintii la furay qaabkii loo furay waxaa sababay qof ka dambeeyey wixii bay soo gudbin micnaha oo part 1 part 2 part 3 sameeyay taas markii xaq loo filaa ceeb aan dhaqan ku jirin laba qof baa isqabanayaan waxa laga yaabaa in micnaha qof la dilo kaleeto si loo dilay qaabkii micnaha qof ka dambeeyay inta la cayl u bixiyay wixii baa soo gudbinay marka taa markii la dhahana camal wax qurux badan maaha waxay keeni kartaa ceeb waxyaalaha micnaha saa wax ka mid tahay in micnaha ay iska hormaadaan saa hore kuu sheego laba qabiil oo kaleeto is dagaalaan ta kaleeto baabajey waxaa jirta hadda kahor inay wiila isku dhaceen ay isqabteen oo micnaha dee dagaalkooda lahay micnaha baabajey baa la afduubtay wiilaha darteed baa la afduubtay oo in muddo la wala socoteen oo micnaha qibiisi kala duwan haysteen balse later on waxaa la ogaaday ugu dambeyn in micnaha wixii ay ahayd barangi oo baabajey iyo sidoo kale micnaha dee gabadhaas wiil ay yihiin laba qof oo saaxiib ah haddana ceesh wadaag ah waa tii jirta weeyaan maa hore markuu ka hadlaya arrinta micnaha farmaajo iyo labada dhinac ay ka hadlayeen baabajeyna oo madaxweynaha difaacayay gabadhan micnaha madaxweynaha dhaleeceynayay waxay sheegeen habeenkii labadaba lifeka loo keenay in micnaha ay tahay wax ayada barangi labadoona ay isfahansanaayeen marka maadaama ay saa ay markii ma hor baabajey la dil rabay in weli ay socoto waxa loo yaqaan futuraiska oo tii barangi aad marka barankii micnaha dadka youtuberleyda ay sameeyaan si inta badan baabajey uu sameeyo wuxuu keeni karaa naceeb waa tan micnaha u leeyahay ha iska daayo wax qurux badan maahan in micnaha dee waxyaalo wanaagsan aad soo gudbisan aad u qurux badan tahay baabajey waxaan ogeyn inuu ahaa nin dee iska qalab wanaagsan filmaanta fasiro dee saameyn kula soomaalida qaybeeda kala duwan laakiin waxaad moodaa sanadahan u dambeeyey in micnaha uu baabajey micnaha dee aqliga asaga u lahayn uu isticmaalaynin dee aqligiisa uu isticmaalino dee aqli kale uu isticmaalayo dee waxyaalo fara badan oo micnaha fool xun micnaha uu ka gaabsanaynin tusaale haddaan kusoo qabto xalay waxaa jirtay live buu ciyaaray waxay ahayd gabadh yaraha Huda Amuun waa gabadhi micnaha baabajey dhexda u xiratay in ay u socodso TikTok iyo baabajey oo had jeer baabajey noo sheegi jiray laakiin wuxuu weydiiyey su'aal qaldan taasoo ah micnaha qoraal uu qof soo qoray buu akhriyey sababta in muxuu weydiiyey gabadhana micnaha su'aasha ayada in badan baa la weydiiyey in la weydiina way neceb tahay maxay tiri live-ka ku jirta uga baxday baabajeyna way caasay marka waxaad moodaa xogaa dhaqan ciyaaleed inuu baabajey uu leeyahay aad baad umahadsan tahay haye intaas waxaan kusoo guranadeena arrinkii aan halkan ku falanqeynaynay ee baabajey iyo weliba arrimihii isaga iyo wiilo ka bilaawmay tani kulankeena xiga mahadsanidin